Ma ogtahay in markab xamuul ah oo loogu magacaabi jiray MV Rose uu siday 2750 tan oo walxaha qarxa keena ee ammonium nitrate-ka kana yimid Georgia kuna socday Mozambique bishii September 2013 laakiin intii uu ka gudbayay badda Mediterranean-ka markabku waxa uu la kulmay cilado farsamo oo waaweyn taasoo ku qasabtay inuu si aan qorshaysnayn ugu istaago dekedda Lubnaan. Markabku waxa uu ku xayirmay Lubnaan toddobaadyo sababtoo ah shirkaddii lahayd markabka ayaa musallaftay kadibna ammonium nitrate-kii waxaa lagu dejiyay bakhaaro ku yaalay dekedda Beirut halkaas oo uu yaalay sanado badan inkastoo digniino isdaba joog ah ay bixinayeen saraakiisha custom-ka yaamniga kuwaas oo ku baaqayay in halkaas laga saaro hase yeeshee wax tallaabo ah lama qaadin. kadib 2020 dab ayaa ka kacay dekedda kaasoo sababay qarax weyn oo hirarkiisa iyo gariirkiisa laga dareemayay guud ahaan Lubnaan ilaa jasiiradda Qobros waxaana baabi'iyay gabi ahaanba dekeddii Beirut. waxay noqotay musiibadii ugu weyneed ee ugu burburka badnayd taariikhda Lubnaan. 218 qof ayaa ku dhintay in ka badan 7,000 waa ay ku dhaawacmeen kumanaan dhismayaal ahina waa ay ku dumiyeen. adigu yaad u malaynaysaa inuu mas'uuliyadaas qaadanayo mise laga hortagi karay?